ilma lagu dawooba dabka lagaga bayraa takanada ku garataa dadnimada ku barataa dusha sare allaa jira daafaha warbayaal dadka loogu talagalay nin lahow wadaydayo bismillahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada barnaamijkeena muuqaalka toddobaadka ee idinka iman jiray xarunta tv qaranka Oslo Norway. maanta waxaa noogu martiya gabadh degan magaalada Oslo in badan deganeyd oo ah haweenka reer Somaliland ee had iyo jeer ka muuqda dalka Norway. waa Ruwayda Saleebaan Muuse, Ruwayda kusoo tv qaranka Oslo Norway. wadnaasanta maxmed waan dhawahay. ruwayda dad badan oo ku daawanaya iyo dad badan oo ku aqoon ayaa tv-ga caawa ka daawanaya jamhuuriyadda Somaliland. bal waxaan rabnaa in yar inaad nooga xogoranto ruwaydii waa tuma halkaad iskuullada kusoo dhigatay Norway waan adoo yar baa timi bal noo waran. bismillahi raxmaan raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. horta magacaygu waa Ruwayda Saleebaan Muuse. Norway waxaan imi 1992 waynu isgaranaynaa. iskuulkaygii hoose dhexe sare high schoolkii jaamacadda waxba Norway baan ku dhigtay. waxaan qaatay Reinskap, waxaan Reinskap Sforer. waxaan ku shaqaynayay 5 sannadood. imikana waxaan furay Reisa Biro travel agency. marka imikana travel agency-gana waan ku shaqeeyaa. xafiiskana adigu soo booqatay. Reinskap-kana waan ku sameeyaa, laakiin imikii hore Reinskap-kan ku shaqayn jiray shirkad weyn baan u shaqayn jiray 25 aan lahaa. 75 kalena ay shirkadda kale dad kale oo sharing lahaayeen. marka imika waan iska dayay private aan anigu keligay u madax bannaanahay ayaan sameeyaa. waan ogahay Ruwayda waxaad ku leedahay gabadha kaliya ee magaalada Norway ku leh Reisa Biro ama travel agency waxa la yiraahdo tigidhada jara ayaa tahay. bal looga waran travel agency wali maan arag gabadh Soomaaliyeed ama gabadh reer Somaliland oo waligeed furata travel agency. waa qofkii ugu horeeyay aan arko nasiib wanaag. waxaad gula nooshay dalka Norway bal looga xogor. aad baad mahadsantahay maxmed. horta runtii waxaan furay travel agency-ga 2015 waxa igu dhaliyay 2013 baan Somaliland tegay. waxaan kaxay hooyaday awowgay ilaahu naxariista xanuunsanayo dhintay baan kaxay. waxaan ugu dhacay tacad fara badan. xaquuqdeedii baa aan weynay. diyaaradihii markaan xitaa Somaliland joognay adoo ku qoran baad haddana laga bedelayaa. dad badan baan xaquuqdooda garanayn. halkan had iyo jeer ajaanib baa ka shaqeeya oo travel agency-yada leh. ajaanibkiina af Soomaaliga ma garanayaan. dadka had iyo jeer dhoofaana wuxuu badayay dad waaweyn, dad dhexe oo caruurahooda ama celinaya ama iyagu wadankii ku noqonaya. marka xaquuqdooday had iyo jeer waayaan. at the same time sidaad u ogtahayba diyaaradaha markaad la dhiil garaynayso mar lacag bay ku siinayaan oo dee commission bay ku siinayaan. marna waxaad kula dhiil garayn kartaa inaad xaquuqda dalkaaga iyo shacabkaaga aad u samaysid. marka had iyo jeer markaana dee wadankii aanay Soomaali ahayn lacagtuun bay qaadanayaan, laakiin bagaashkii baa loo kordhin karaa. tigidhada bilaash loogu bedeli karaa. one time oo kale mar in loogu bedelo free. in bagaashahan badan bacdamaba Afrika lagu noqonayo in 46 kiilo ba ugu badan oo looga dhigo iyo wixii la mid ah. marka saas ay igu kaliftay inay dadkeenu helaan xaquuqdoodan uga shaqeeyo.
laakiin markaad eegto shaqadan travel agency qof keligeed iyadu meheradii furatay oo tigidhadii nooc walba hadday British Airways tahay hadday Lufthansa tahay hadday Imaaraat tahay iyo hadday saasba tahay meeshii doontay adduunka ama ha noqoto America ama ha noqoto Asia ama ha noqoto Africa ama Europe dhexdeeda ha noqotay laakiin waa gabadhii ugu horeysay ee meherad ku dhex yeelata dalka Norway arrinkaa fikirka miyaad wala maxaad qoor lahayd dumarka kale runtii xitaa maaha uun gabadha marka ragga la eego imika meel quriya oo Oslo ku taala ama Norway oo aan ahayn meel dhinacna ka dukaana dhinacna ka maxay mooyaane meel sidan oo kale official u ah oo tigidhka khaas u ah oo Soomaali leedahay ma jirto xafiiska tigidhada lagu gooyo khaasa talabaadna runtii dumarka Soomaalida un maaha adduunka oo dhan 90% rag baa businesska wata waxaan aad u jecelahay inay dumarkuna businesska soo galaan waayo haddaad eegto horta Asian maba arkaysid gabadh business leh Afrikaanka aad buu ku yaryahay Australian waa dad yaroo garan bamayno markaad eegto Maraykan iyo Yurubna 90% waa rag dumar ma aha Soomaalidaba lagu qaato xitaa dukaamo ay dumarku leeyihiin marka waxaan aad u jecelahay inay dumarku ay la soo galaan businessku waa freedom waa wax wanaagsan xor weeyaan at the same time markaad laga yaabo inuu maanta daaqad ku furan tahay birina albaab weyn baa ku furmaya marka aad baan u jecelahay dadku businesska rag iyo dumarba Soomaalidu ay ku soo biiraan waa sax laakiin ruwayda marka la eego centerkii magaalada ayaan joognaa meheradaadii waynu joognaa halkii travel agency-ga ee tigidhada aad ku jiraysay waa centerkii magaalada waa Oslo howlkii ugu sarreeyay train stationkii ayaad dhinaciisa aad tahay waana faras magaalihii magaalada meeshan oo kale meel ay dadka Soomaaliyeed cidda doonta ahaatee ka furtaan meherada maaha bal qofkii ugu horreeyay aan ku arko centerka magaalada oo meherad ku leh ayaad noqotay waliba qof dumara ayaad sii noqotay waxaana jartaa tigidho meel walba ah arrinkaas may ka duwanayn intii hore ee dalka reer Norway ay deganaa way ka yara fogyiin businessyadoodu inta yara centerka laakiin halkan waa faras magaali waad ka furatay saad u aragtay horta alxamdulillah waa runta wad mahadsan tahay wax kastana horta wax kasta orodna lagu helo dadaalna lagu helo ilaahay iyo qadarkiisa lagu helo laakiin dadaalku waa wax jira waxa la yiraahdo contact ama network ayaa muhiim ah xiriirka bulshada dhexgalka bulshada ma inaad ku dhexgashid inaad dhinaca xun ka dhexgashid laakiin waa horumarkii wax qabadkii waxbarashadii iyo wixii la mid ah runtii waa runta imika markuu dad badan markaan ama xisaabta ka shaqeynayo ama halkan ka shaqeynayo waxa la yiraahdaa Soomaaliyeed matid markaan xisaabta kale ka shaqeynayo wax la goorin jiray haddii xitaa dad badan marka dhaama inaan Soomaaliyeed ba halka ka shaqeynayso ay tilmaanigu yimaadaan waxay sugayaan qof dhaqan kale leh oo si kale ah laakiin adoo dhaqankaagii haysta diintaadii haysta sharaftaadii haysta ayaad haddana la dhiil karayn kartaa bini'aadanka marka waa run way adagta kontrakyada sida loo helo waxa kalifa had iyo jeer bulshadeen oo ay dadku dacaayado qalada ka fidiyaan ama inaguba aynu iska fidino marka waa lagu adkeeyaa iyo inaynu nahay maanta bulshadii labaad ee dalkan populationka labaad baynu nahay marka hore Pakistan tahay imika inagii Pakistanti bay isku haysan Pakistantina waa dad generationkii saddexaad ayay marayaan marka inaguna kii koobaad baynu nahay marka ma doonayaan in suuqii iyagu haysteen lagu soo galo marka meel walba waa lagaaga horeynaya saasaa kalifaysa hadii jeer laakiin ay like inaan dadaalo oo aan waliba intan ka sii dadaalo wayda markaad eegto dalka Norway ayaa degan tahay imika markaan tigidhada aad jarayso reer Somaliland dadka tagaya imika Hargeysa oo kale diyaaradda waad jartaa oo kale diyaaradda laba diyaaradood baa Somaliland tagortay aad baan ugu bishaareynaya dalka Somaliland madaxweynaha qaranka salaamiya
madaxda kalan salaamaya madaxweynihii hore axmed maxamed siilaanyo oo dalka wax badan soo usoo qabtay baan salaamaya oo ay timi diyaaradin la yidhaahdo Emirates ama Fly Dubai oo isku xidhan runtii waa markii koobaad ee diyaarad international ay Somaliland timaado ma timaado Soomaaliya oo kale marka waan ku faraxsanahay iyo Ethiopian Airlines way tagtaa marka Ethiopian Airlines baanu jirnaa Somaliland iyo Fly Dubai iyo Emirates oo isku xidhan markaad eegto Air Arabia kala jirtayna oo tagta dalkii taamidan connection dadka u sameeyay waan u sameynaa laakiin Air Arabia inta badan waxay ka tagtaa shaariqana dadkeenu wuxuu jecel yahay si fudud oo inuu Dubai intuu ka dego dabeetana uu kala ku wareego markaas darteed way u jabantay runtii inaad halkan diyaarada jaban intaad uga jarto aad connectionka u sameyso hadduu dad Soomaaliyeed oo ka ah wakiil oo ay jiri lahayd in loo transfer gareeyo dadkaas bagaashaha ama maxaa la yidhaahdaa maya alaabtooda in loo sameeyo way u fududaan lahayd laakiin ma waxay dadkii wax laga yaabaa diyaaradaha halkan ka tegaya waxay tagaan waqti dambe diyaaradaasina markaa waqtigaa dambe dadku way ku adagtay waa laba kala magaalo kala yara fog marka taasaa kaliftay inay wax isku xidhan ay tagaan faamiliyadeena Soomaalidu way badan yihiin had iyo jeer ma aha qof iyo laba isla dhoofiya had iyo jeerna uma saamxo waqtigu inay odayga iyo islaanta ama reerka faamiliga aabaha iyo hooyadu isla baxaan oo carruurta isla wadaan marka waxa laga yaabaa inay gabadhii iyo carruurtii dhoofaan markaana ay ku adkaato inay waqti dheer iyo meelo kale ay transit ku sii ahaato ruuxda markaad eegto dalkii dhawaan baad qatay Hargeysa tagtay Furca tagtay Berbera tagtay balooga waran saad ku soo aragtay horta dalkeeni hooyo waa maasha Allah ilaahay baa mahad iskale waa markii saddexaad aan wadanka tago laba jeer horaan tagay marna 7 cisho marna 9 cisho aan joogay waqtigan xaadirka waxaan joogaa halkan imika 3 week 3 week hor baan ka imi wadankii 3 biloodna waan ku maqnaa yacni wuxuu ahaa amazing inaanad aad jeclaysato doorasho ka dhacday oo markii koobaad ee aan noloshayda arkay wadankeeni oo doorasho iyo wax Soomaali leedahay oo la dooranayo marka aad buu fiicnaa xagaad ku sugnayd maalinta doorashadu dhacaysay maalintii doorashadu dhacaysay waxaan ku sugnaa Berbera gobolka Saaxil saad u arkaysay markaa dadkii codeynayay ee laynka ku jiray ee cadceedu haysay ee aan biyana heleen codkoodana ugu jiray laynka maxamedo waxyaabaha cajiibka ah oo runtii indhahayga oo hinka keentay waxa kamid ah shacab weynaha Soomaaliland oo salaamaya oo u hambalyeynaya wadaninimada ku jirta waxaad arkaysay iyada oo ah layn dheer oo waliba qoraxduna kulushahay dadkii oo iyagu intay isku abaabulaan taagan oo laynkii taagan oo aan cidina laynka u saxaynin oo aan bihaysan oo aan cunto oo qaarkood kayuugii ay xalay labadii soo galeen 4 subaxnimo ayay 8 ama 10 subaxnimo ka codeynayeen yacni waa shacab la mid jirin oo muwaadiniina oo wadaninimadu waxay tahay runtii garanaya waa sax sidaad u aragtaa madaxweynaha imka cusub ee la doortay Muuse Bixi Cabdi madaxweynaha hore wuxuu ahaa Axmed maxamed Silaayo maalintii dhaarta xagaad ku sugnay hortay maalintii dhaarta maxamedow aan ka qosliye tigidhkayga waxaan u kansalay inaan arko indhahaygu arkaan in madaxweynaha Somaliland oo madaxweyne kale Somaliland kala wareegay xilka waxyaabaha mucjisada waxay ahayd 3 wadan baa ku sugnaa oo adduunka ah 5 madaxweyne ayaa xilka isu soo dhiibay oo madaxweynihii shanaad baa Somaliland dooratay waxyaabaha cajaa'ibka ah ee aan xitaa Afrika kuwa 50 sano jiro 100 sano jiray aanay sameeynin marka waxaan ku sugnaa xarunta madaxtooyada waxaanan ahaa oo nasiib u noqday inaan u helo daawadayaashii
2000 ahaayo lasoo casuumayay daawanayay maalintii xil wareejintiiyo dhaarta. siday ahayd maalintaa dareenka? maalintaa dareenkaygu wuxuu ahaa dareen aada u cajiiba. waxa in waan ooyay. khudbad aan lama ilaabaana ayuu jeediyey madaxweynihii hore Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo, ilaahay cimriga ha u dheereeye, oo qof kasta oo meesha fidhiyay shucuurtiisii kicisay. khudbadii koowaad ee uu jeediyey madaxweynaheena cusub Muuse Biixi Cabdi marka horreeyada waxay ahayd iyaduna khudbad taariikhiya oo dad badan dhegahooda iyo indhahoodaba soo jiidatay. wuxuu taabanayay meelo fara badan, weliba isagoo la hadlaya dadkii cadaanka ahaa oo iyaguna weliba meesha ku sugan oo horjooga. marka waxay ahayd khudbad aada u cajiiba iyaduna tii Muuse Biixi Cabdi. wadankii waa adiga soo arkay, waxaa la sheegaa in ay maciishadii kor u kacday. adigu waxa tahay dadkii dalkii tegay doorashadii soo eegayay, waad ka duwan tahay marka aad dibadda ka timaado iyo marka dalka gudihiisa aad ka timaado. si aad u arkaysay maciishada? walaahi horta runtii maciishadu way yara kacsanayd oo qaali bay yara ahayd, laakiin wadan doorasho ka dhacayso, isbedel imanayo, waxyaabo badan jiro, wax soo saarkiisu yaryahay, inta badan ay nagaga xidhan dibadda iyo adduun weynaha inaynu mar walba aynu ka sugnayn wax la soo degno way adkaanaysaa. laakiin sidaasoo ay tahay haddana marka loo eego aad bay u fiican tahay, oo runtii marka aad wadankii tagto ee aad life usoo aragtid iyo marka lagaaga sheekeynayo waa different. dadka qurba jooga ee reer Somaliland aan cod dheer kula hadlay waxaan leeyahay xaqiiqda Somaliland taala iyo waxaynu halkan leynoogu keena totally waa different. dalkeenu waxa weeyaan dal aada u horumaray oo aada u wanaagsan, dadkuna dadaal aada u badan buu sameynayaa. dalkeena waad ogtihiin oo 1988 dagaal baa ka dhacay, waa la duqeeyay. adduunka waxa la siiyaa in la gacan qabto oo adduunku u caawiya si ay dalku dib ugu soo noqdo. inagu runtii maynu helin. marka intaa dowladaheenii kala dambeeyay ayaa soo dadaalay. marka dadaal ahaan way ku dadaaleen, dadkuna inuu la dadaalo oo aynu noqono dad wax soo saar leh oo dhulkooda beerta. waxaad arkaysaa cuntadii inagoo cuntadeennii wadaniga ahayd inaanu dadku iibsanaynin oo tadbadaha ka imanaya uu iibsanayo. marka kama baxayno inay maciishadu nagu qaaliyowdo oo sixir barar inagu dhaco mar walba. laakiin marka isbedel had iyo jeer imanayo, dumarku ayaa ka mid ah inay ka qayb qaataan isbedelka. haddaan ragoo keliya isbedel ma keeni karaan haddaan dumarku la socon adduunka. marka bal dumarka looga xog war. runtii maxamedow arrinkaa waan ku kala yara fikir duwanahay. dumarku anigu my opinion ruwayda ahaan waxaan aaminsanahay inaanay weli dumarka Somaliland u bislaanin taa siyaasadda. sidaa darteed horta ragga sideedaba dad muslina baynu nahay, dhaqanna leh. dhaqankeenuna mar walba wuxuu ku salaysan yahay diinta islaamka. ragga ilaahay baa u dhiibay maamulkii awoodda, mar walbana iyagaa wadaya wax. ilaahayna wuxuu yidhi qoonka dumarku hogaamiyo, dawaynu garanaynaa. marka laakiin waxaa jira nin kastana waxaa jira maahmaah la yidhaahdo every successful man a woman behind. nin kastoo khatara gabadh baa ka dambaysa. dee tala ahaan, fikir ahaan, maskax ahaan, toosin iyo tusaalaad u baahan way sameyn karnaa. laakiin waxa weeyaan inaynu korsan tahay gabadhu. dumarku runtii waa caqli miidhan. waad ogtahayoo ama filin haddaad aragto ama waagii asxaabta haddaad dhegeysato, wax kasta ama waqtigan xaadirkaaba wax kastoo la qaban kari waayo gabadh baa loo diraa. maskaxdooduna way fara badan tahay, waa haddii ay sida saxda uga faa'iidaystaan. laakiin waa inaan u bislaano oo aynu ognahay waxaa jiro. maanta markaan xafiiskan fadhiyo innaga oo doodnay oo aynu iska soo horjeedno oo haddaan doonana guri ku wada noolahay
aynu kiiskii albaabka markaynu ka baxno albaabka ku close garayno laakiin hadday conflict inoo keenayso waa dhibaato marka taasaynan weli hore uga marin anigu waxaan aaminsanahay inuu dumarku wixii shaqeeyare hoose iyo xafiisa mooyaane xitaa anu wasiirka xitaa kuma aaminsanin dumarka loo dhiibo laakiin waa aragtidayda doorashooyinkii baa soo socdaa golaha deegaanka iyo kii baarlama oo bisha sanadka dambe la filaya inuu dhaco imika waxaa bilaabantay abaabulkiisii iyo dhaqdhaqaaqii waa bilaabmay xaggii baarlamanka bal sidaad u aragta wallaahi horta waa maasha allah waynu u baahannahay oo golaha baarlamaanku 13 sannadood iyo dheeraad buu fadhiyay waxaana anigu waad garanaysaa dee waxyaabahan ku dhaliilaabay ka mid tahay oo sharciga aynu maanta isku haysanay iyo shuruuc badan oo maanta anna wax siinaysa anna wax ku siinaysa haddana ku diidayso ku siinaysa dee weli lama dhammaystirin waqtigaa 5 sano aynu dooranay 7 sano iyo siyaadona way ku darsadeen iyadoo ku darsadaan haddana sharcigii may dhammaystirin marka waxaan ku rajo weynahay in baarlamaan la doorto baarlamaankaasina uu noqdo baarlamaan shaqeeya oo shuruucdii dalka inay wax ka bedelaan oo ay dhammaystiraan oo dastuurkeena la dhammaystiro ayaa loo doortay ay dhammaystiraan golayaasha deegaanka soo hadhay golayaasha deegaanku waxay matalayaan deegaankii dhamma waana muhiim oo shacabkii bay wakiil ka yihiin deegaamo badan oo deegaamadeena ka mid ah waa dhibaataysan yihiin biyihii baan gaadhin wada la-aan baa haysa shacabkii weeyaan waa reer miyiga haddaad aragto ka caanaha keenaya iyo ka neefka xoolaha keenaya cashuur baa laga qaadaya dhulkoo beera ma haystaan biyo xidheena ma haystaan waxaana dowladda hoose dhexe maaha dowladda hoose ee local government ayaa mas-uul ka ahayd inay deegaan kasta ile dowladda hoose laga soo doortay wakiiladoodu inay iyaguna u shaqeeyaan wixii ay qaban kari waayaan ay dowladda dhexe u soo gudbiyaan marka mar walba waxaan aaminsanay dowladdii golihii deegaanka nagu fadhiid buu noqday golaha baarlamaankuna fadhiid buu noqday markaa dumarka raba inay kasoo qayb galaan maxaad ku odhan dumarka raba inay kasoo qayb galaan waa mas-uuliyad waana wakiil horta baarlamaan markay noqoto qof aan aqoonteeda lahayn oon kartideeda lahayn oon experiencekeeda lahayn oon mas-uuliyaddeeda qaadi karin waxa weeyaan dee dalkan dhan ayuud matalaysaa oo dadkan dhan baad matalaysaa sharci dhan oo dad lagu karbaashaya ama horumar lagu gaadhsiinayana waad samaynaysaa marka meel loo soo shaqo tagay ma rajaynay inay noqotee meel lagu shaqeeyaabay noqonaysaa marka hadday jiraan dumar aqoonteeda leh dumarku way ka corrupted yaryiin ragga wana ka naxariis badan yihiin laakiin mararka qaarkood go-aan adag baa loo baahanya dumarku go-aanka aada uma qaadan karaan oo waa naxariis miidhan marka haddii ay taasi jirto sharciyadaad adag ee dalka xadidaya ee inagana ina qabanaya dadkana inaga qabanaya ee haddaynu maalgashi samayn lahayn maanta waad ogtahay intaa wadankeenu waa qani haddaynu xitaa maalgashi dad badani uu samayn lahaa qof kastaaba waxaan samayn lahaa buu samaynaya oo waa maxay waa inaan sharciga wadanka eego dalka maxaa iga qabanaya waxa haddaan anigu qaldamo i qabanaya ayaa hadduu isagu qaldamana iga qabanaya sharcigu waa muhiim marka qof aqoonteedii le haddii ay ku jiraan dumarka dee way ka qayb geli karaan laakiin koley anigu mar walba dhinaca raggaana xagga sharcigaa taabatay sharciga markaad eegto qofkii markuu khalad galo waxaad arkaysaa markiiba salaadiin hadlaya iyo cuqaal hadlaysa miyaanay taasi dhibaatooyin ku keenayn waayo sharcigii iyo madaxa dhaqameed labadii way isdul saarayin inaguna sharci baynu samaysan oo dowlad baynu nahay oo madaxweynehenu waa Muuse Biixi Cabdi golo wasiiruu doortay golo sharci dejin baynu leenahay maxkamadii baynu leenahay in sharciga lagu dhaqmo oo salaadiinta had iyo jeer oo qofkii marka uu dambi galo markiiba cambaareenaya miyaanay ka wanaagsaneen sharciga maraan hortay runtii anigu mar hore calaamad su-aal baan saaro xadhiish salaadiintan iyo cuqaashan miyaynu u baahannahay imika bacdamaa baynu dowlad nahay oo aynu dal dowlad leh oo sharci loo dastuur leenahay haddaynu se aynu uba baahannahay waa dhaqan
wixii dhaqanka iyo ka dhacaya meelaha dibadda ah sida dee dhaqameedkan caadiga dee reeraha iyo meelaha deegaanka waa macquul laakiin wixii ay dawli ah inay soo fargeliyaan maaha waayo madaxweyneynu dooranay weyn hawshiisa wasiir baa dooratay weyn hawshiisa loo dhaafo baarlamaan baynu leenahay booliis baynu leenahay ciidan qaran oo dalka nabadgelyadiisa sugayaynu leenahay marka waxyaabaha khaladka ah wax weeye inaanu shacab iyo dee saldaan ama caaqil oo kaleba inaanu soo fargelinin arrimihii dawliga ah waayo haddii kale dowlad ma noqonayno dowladeeni ma soconayso sharcigeenina ma hirgeliyo haddaynu xeer hoosaadkii xeer jajabkii iyo dhaqankii wixii kasoo horjeedayna wadno haddana aynu dhahno dowlad baynu noqonayna waa in sharcigeenu wuxuu ka qabo la mariyo wax alaaliyo wixii wadanka ka dhacaya waxaad leedahay haddii anigu aan khalad galo oo khaladka aan galo lay xidho dee waa in waajibkii wixii maxkamaddii systemkii aan maraa laakiin in caaqiladu ama salaadiin markiiba in shir jira ay qabtaan haddaan 24 saacadood lagu soo dayin waxaan waan sameynaynaa in sharciyadu ay sarreyso ayaa khasaba tiri mar haddii aynu nahay wadan reer Somaliland nahay in sharciga la ilaaliyo yes because even way u fududaanaysaa dadka nin waliba intuu wuxuu doono sameeyaaba odhanayaa saldaankaygiba hadlaya ama caaqilkaygiba hadlaya 24 saacadoodna markuu reer hebel hinjabo ayaa la isdaynaya laakiin naf baa la dilaya naf baa go-aysa aakhiro reer hebel iyo in hebel ma soconayso sharcigii baad ka hor imanaysa cawaaqib xumaadina dhaxal siinaysa dalkeenii dubudhac badan baa ku imanaya maalin walba marka caaqil la tixgeliyo suldaan la tixgeliyo reer hebel la tixgeliyo deegaamaad arkaysaa la odhanaya anigu haddaan reer hebelnay deegaanka lama taaban karo waa lama taabtaan haddana dowladdii laga cabanayo la odhanaya dowladdu waxba ma qabanayso dowladdu xaggee wax ka qabanaysa sharcigu ma soconayo sharcigii waa laga sarreeyaad maqlaysa sharcigii sawdigan adigu ka sarreeyay 24 saacadood u qabtay marka aan waxaan aaminsanahay inuu sharcigu sarreeyo sharcigu hirgalo sharcigeenana nin waliba uu og yahay inuu sharci u yaal dalka hadduu wax qalada sameeyo in sharcigu qabanayo laakiin haddaanu sharcigiiba ogsoonayno uu aaminsan yahay suldaan baa ay hadli doona xitaa nin la xidhay suldaan soo daynayo dee caqli gal ma noqonayso ama lasoo cafis loo fidinayo dalkuna ka galay khalad lama cafii karo laakiin hadduu shaqsi madaxweynaha ka galo ama wasiirka ka galo madaxweynaha wasiirku waa cafii kara laakiin qof dhan oo dembi dalka iyo dadkii ka galay baa la odhanaya oo sharcigii jabiyey markaas baynu horumar galaynaa sibuu sharcigeenu u hirgelayaa haddii qof walba la cafiyo soo cadaalad maaha ana markaa waa in la cafiyo adna waa in lagu cafiyo qof walba waa in la cafiyo sharcigiina markaa shaqayn maayo ruwayda waxaa la leeyahay wadahadaladii ayaa bilaabmaya oo ka bilaabmaya dalka Djibouti dhowr jeer oo horena waynu wada hadallo Turkiga aynu ku wada hadalay Ingiriiska aynu ku wada hadalay Dubai aynu ku wada hadalay bal maxaad ka oran lahayd arrinka bismillaah rahmaan horta walaalo de Soomaaliland iyo Soomaaliya waa laba wadan oo siman waqooyi iyo koonfur ayay isku heshiiyeen 1960 shan Soomaaliyeed baynu doonayn shan Soomaaliyeedna weligeed ma dhicin imikana inay dhacayso de cidii dan ma jirta laakiin calaamad su'aal baa saaran bacdama haba aynu shan ahayn maantana aanay inaan ahayn saddexdii kale halkay martun bay hortay Somaliland maraysa gooni sutaaga Somaliland waa muqaddis lama taabtaana waxa weeyaan rabitaanka shacabka Somaliland cid ka soo noqon karta ma jirto iyo gorgortana ma gali karo haddaba Soomaaliya iyo Somaliland waa laba dal oo walaalo ah oo xuduud leh inay sida sharciga ah ku kala baxaan ayuun baa muhiim ah waayo wax badan baynu ku wadaagnaa xuduudaheena hanti baa jirta uu dalku wada leeyahay markaa sharci in la maro mooyaane anigu waxaan rajaynayaa wadahadalkii hore inaanay waxba ka dhalanin ama Turkiga lagu wada hadlay ama Dubai lagu wada hadlay inaanay waxba ka dhalanin dhinacna ay u badnayd
imika wax cadaalada hadday jirto oo Somaliland iyo Soomaaliya si dee sax ay wada hadlayaan oo soo dhaweynaya haddii kale uma baahnaba in la wada hadlo mar haddii heshiisyadii horeba laga baxay oo wax ka fulay aanay jirin ayaan aaminsanahay anigu shaqsiyan inoo ku jira barnaamijka gabagabadiisii maxaad kusoo gabagabeyn lahayd mar haddaad maanta marti noogu tahay oo aan kugu nimi xaruntaadii travel agency-ga ee aad magaalada Oslo bartamaheeda aad ku lahayd halkaa tiibaanaha laga raaco ama undergroundka laga raaco Oslo ama Oslo City hoosteeda maxaad noogu soo gabagabeyn lahayd ruwaydaay mar haddii maanta aad kugu soo boqonay xafiiskaaga waxaan kusoo gabagabeynaya horta waan ku mahad celinayaa TV-ga qaranka Somaliland waan u mahad celinayaa daawadayaashana waan salaamayaa waxaan kusoo gabagabeynayaa inaan halkan xafiis ku leeyahay travel agency-ga tigidhada u jarno tigidhadana adduunka oo dhan u goyno aanu idiin fududeynayno waxyaabo badan oo idinku adag af Soomaali lagu hadlayo qof kasta oo u baahan tigidhada qaar badan free lagu bedelo oo aanay fee lahayn miisaanka uu 40 kiilo ugu hooseeyo 46 kiilo diyaaradaha qaarkood qof kasta oo Soomaaliya oo degan xagana inuu ka goosto qof Soomaaliyeed si aad xaquuqdaada u badato haddaanu iga goosanaynin ma lihaan iga goosta laakiin haddaanad ka goosanaynin aniga mid kaloo Soomaaliya ka gooso waayo waxaan doonaynaa in xaquuqdiinu badato oo aydin xaquuq ku yeelataan diyaaradaha qofka waxaad kula gorgortamaysaa 200 oo qof baa Hargeysa ka dega 500 oo qof baa meel heblaaya ka dega marka dadka customer-ka ah waxaan doonaynaa inaad miisaanka u badasaan waxaan doonaynaa tigidhada inuu mar hadday wax ku yimaadaan loo bedelo aad free uga dhigtaan iyo wixii la mid ah marka aad baan kugu mahad celinayaa shacabweynaha Soomaaliyeedna waxaan leeyahay welcome to Atlas Tour aad baad mahadsan tahay taas waxay ahayd ruwayda Salebaan Muuse oo aan ku booqanay xafiiskeeda travel agency-ga ee Atlas Travel Agency oo ku yaala centerka magaalada Oslo sidaa iyo noolu kulantay ilma lagu dawooba dabka lagaga bayraa takanada ku garataa dadnimada ku barataa dusha sare allaa jira daafaha warbayaal dadka loogu talagalay nin lahow